بسم الله كسولو جنالك ظاهر عشان كان ما انتو عقو قادرنا label values اما value label متقانا هذا عشان كي لسو دافع وحوها وحقو قادرنا variable label عشان كان حقو قادرنا value label عشان كان حقو قادرنا variable label كان حقو قادرنا value label ما كان هروح حقو داعت سوستان هروح سو سمينا variable label هذا وحرمنا values نفسه سمينا values ka inaad caadi ah aso integrate oo dhahdo wixii aad qorto oo aad soo geliso hore ugu soo hadalnay laakiin marka hore waa inaad haysataa xogtaada xogteena koowaad wuxuu ahaa variable label variable waa soo sameynay variable keena waa kana hadda waxa u baahanaa values na sameyno hadda kan id number waa continuous waa badanaa ma lahan wax values ah laakiin saddexdan leh saddexdan markay سالان سكسي وكله male and female iyo status كم unmarried married divorced primary university and I mean high school mention high school أقربنا okay high school okay صح okay صح marka inta marka sameeyno marka waxaan rabnaa inaad xogtaan aan ku beddelno xagaas hore waxa u soo baranay in xagaan imaano oo aad ahno kala tusaalahaan xagaan tagno oo aan soo gelino aad ahno 0 waxa uu aqoonsataa male hadan aad ahno kale 1 waxa uu aqoonsataa female sidaas aan ku sameeyno sidaas waa sameyn karnaa waana qaab iska fudud waay hadii kulliisa sameyn karnaa laakiin hadda maanta waxaan rabnaa inaan sameeyno waa iska tiraa inaan qaab syntax ah u sameeyno okay marka waxaan tagaynaa syntax-keena tagaynaa syntax-keena marka tagno qaybta waxa waaye qaybta syntax-keena gee hore waxa uu sameeynaa label variable qaybta marka waxa leeyahay value label leeyahay marka intaas dhaxno marka waxa u baahanahay inaan qeexno variable-ka kadib hadana aan qorno value number-ka kadibna label-kiisa aan qorno marka hore excel-ka uu sameystay marka SPSS syntax type waxa waaye ina variable ka bilaado kadib 0gi oo male ka aha iyo 1ki oo female ka aha qorto oo saas ku soo qorto marka adiga waxa haystaa sexy 0 oo male ah iyo 1 oo female ah marka qaab construction aan hore u soo sheegnay waxa u baahan tahay ina soo dhisto qaab oo syntax file marka hore space ka bilaabeena ka space ka dhano and adheena waxa ginina sexy kadib okay leena qaybta marka asina waxa laga rabaa sid wuxuu leeyahay laba qayb marka waxa sameeynaa space ka sameeyna space kadib and waxa leena 0 and adheena hadana waxa u baahanahay apostrophe kadib waxa leena and waxa gelinayna hadana value male-ka kadib waxa leena and kadib waxa sameeynaa hadana apostrophe ka soo tabeena sidaas ku sameeynaa marka mar hadaa sameyso uma baahnid in marka sameyso waa soo qaadaysaa marka intaas marka sameyso maadaama kan hal variable tahay kan soo koobiye variable ka imaaw ku bastigare marka ku bastigareeso just hal haba ka dhiman Soomaa hal haba ka dhiman halka haba ka dhiman waxa sameysaa maadaama kan laba ahay soo koobiye paste ku dheh okay hay kan saddexaad asna saddex haba waay soo koobiye xagga imaaw maadaama same arrangement yihiin way isqaadanaa saasa hadda waxa ku haysataa specific syntax type kaaga marka intaas marka haysato waxa sameeynaa soo koobiyeena okay soo koobiyay aan tagno qaybta syntax-ka aan ku paste kareyno okay marka waxa u baahanahay markii aan sameynayno ina kala qaadno oo tusaale ahaan markaas rabna inaad isbarbar dhigno marka xagaan taagana oo kale sexy taagana Soomaa xagaan marka taaganahay waa inaan sameeynaa slash inaan sameeyno way sidoo kale xagaan waa inaan slash kala sameeynaa kadibna xagaan ugu dambeyntii waa inaan soo xirnaa okay kadib hadda waxaa haysanaa almost aan tab dhaxno si waadax noogu noqoto haddii wax khalad uu jiro asaas soo saaraay oo waxa waa calaamadan casaanka soo koraay laakiin ila hadda wax oo khalad ah ma jeegno kama fiirnayna okay hadda marka fiirino qaybteena oo data ah
wax values noguma jiro marka waxaan rabnaa xagga inuu value noogu soo noqdo. Okay run garee. marka hore waxaa fiirinaynaa output-ka fiirinaynaa. output-keena wax oo error soo saaray micnaheedu waxaa waaye code-keena waa la aqbalay. aan tagna qaybta datada wakaas already noo soo galeen oo primary high school university kan waxaa noo soo galay married divorced sidoo kale. marka aad runtii aad u fiican yahay. tusaalahaan haddaa rabto oo kale inaad shay oo kale question oo kale haddaa rabto oo kale inaad sameyso aad dhahdo question oo kale questionka uu yahay oo kale yes iyo no. marka waxaad tegaysaa waxaa soo qaadaysaa maybe kan uu badan yahay question 1 aan dhahno. question 1 oo kale markaad rabto inaad sameyso oo question 1kaagi up to question 10 oo waxaa laga yaabaa inay yihiin yes iyo no. marka waxaad sameyn kartaa tusaale ahaan inaad ahdo value label markaad dhahdo waxaad dhigi kartaa question 1 markaad dhahdo waxaad dhigi kartaa question comma dhehaysaa ama comment lama baano. waxaad dhehaysaa question 2 question 3 markaad dhahdo waxaad sameyn doontaa marka xagga imaado 0 markaad dhahdo waxaad dhehaysaa no. marka aad dhahdo 1 yes aad dhehaysaa. qaybtana ka iloobay iska xir. okay marka waxaad sameyn kartaa haddii su-aalahaaga uu yahay kale 10 su-aalood 10 su-aalood ay yihiin yes iyo no inta ka horleed mataqaanaa qor lahayd mataqaanaa ta qor lahayd hal u qor lahayd hal maraa waxaa sameynaysaa waa taxaysaa kadib waxaa siinaysaa hal value siinaysaa maadaama same yihiin. hadda camal Likert scale oo kale oo agree disagree oo kale markuu yahay waxaa laga yaabaa 4 type inuu yahay 4 values inuu yahay. 4taas values waxaa sameyn kartaa su-aalaha dhan oo halkaas nooc waxaa sameyn kartaa hal mar iskugu keeni kartaa. ama waxaa sameyn kartaa inaad dhahdo haddii oo ay tahay qaab cashiradan xiga kusoo qaadan doonaa asoo faahfaahsan oo Likert scale-ka ah. laakiin hadda just waxaa rabaa inaan ii tuso qaabka. waxaa sameyn kartaa in question 1 aad dhahdo oo kale 2 waxaad dhigi kartaa question 10 haddii 10 su-aalood uu yahay. kadibna waxaa sameyn kartaa oo kale maybe 0 waxaad dhigi kartaa disagree waxaad dhigi kartaa 1 agree aad dhigi kartaa saasna hadda weli marka ugu dambeysa iloobi markaas inaa dot dhahdo maadaama uu codeka ku shaqeynaa. marka casharo noocaas waa arki doonaa oo Likert scale-ka ah asoo level ah wax dhan waa sameyn doonaa. laakiin just waxaa fahamka inaa ila ogaato markastaa rabto inaa value label aad sameyso as a professional waxaa ku fiican in syntax ku sameyso. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad datooyin fara badan oo row fara badan uu yahay. marka sida hawsha kugu fudaato waxaa fiican inaa hamar waxaa qaabkii isku aadiin soo daasato kadib labelkaaga iyo waxaa excel kusoo habaysato ama word kadibna hamar aad soo rangareyso sida hawshaada kugu fudaado. sidoo kale waxa oo syntax kaa caawinaya waxaa waaye haddii in case oo kale aad rabto inaad survey kale ama research kale oo noocan ah laakiin qaabka standardka leh inaad soo qaadato waqti badan kaama qaadana inaad qorto. waxaad sameyn kartaa syntaxkaaga aad safgaraysatay aad u isticmaali kartaa next project oo ama next research isticmaali kartaa ama natiijada qaadan doonta haddii qaabka isku strategy haddii kalena update yar ku sameynaysaa. marka waqti badan kaama qaadanayo mataqaana inaad wixii aad qorto aad diyaariso. marka waxaa fiican casharkaas inaad fahamteen halkaas nagu egtahay cashirkeena value labelka ah. marka cashiradan xigana waxaa ka hadli doonaa weli waxaa ku jirnaa data managementiga qeybaha oo ma soo gaarin oo more ahay visualizationka iyo qeybahan oo mataqaanaa regressionka iyo statisticada ah. laakiin se hadda waxaa ku jirnaa weli data management ku jirnaa. marka waxaa fiican casharkaas inaad fahamteen iyo waxaan rajeynaa kheyr badan iyo cashirka xiga insha allah. asalaam.